mucjisadii xalay xidig Manchester United ka tirsan oo aragtida ka tagtay isaga oo garoonka ku jira. Fadlan hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqato janaalkeena, fadlan subscribe noo saar, like saar muuqaalkan waayo dad badan ay gaarayaan. Aragtidaadana comment noogu reeb. Mucjiso ayaa ka dhacday ciyaartii xalay ee PSG iyo Manchester United ee garoonka ka dhacday, waxaana intii ay socotay ay aragtidu ka tagtay mid ka mid ah ciyaartooyda Manchester United oo hal indhihiisa ka mid ah ay u shaqaynaysay qaybtii hore oo dhan. Laacibka khadka dhexe ee Scott McTominay oo shaqo adag ka qabtay khadka dhexe ayaa mid ka mid ah indhihiisa aragtida ka waayay qaybtii hore kadib markii uu dhaqaaq ku yimid wiilkan madow ee batamaha isha, taas oo keentay inuu hal il oo kaliya wax ku arko. McTominay ayaa kusoo bilowday ciyaarta xalay waxaana uu ka garab ciyaaray Fred iyo Bruno Fernandes isagoo uu babac dhigay weerarkii PSG isla markaasna awood u yeeshay inay burburiyaan dhexda kooxda reer France ee martida loo ahaa. Tababare Ole ayaa ciyaarta kadib waxa uu sheegay in xidigiisa McTominay ay il kaliya u shaqaynaysay qaybtii hore ee ciyaarta, waxa uuna yidhi Mark wuxuu qaybtii hore ku ciyaaray il kaliya, taas oo ahayd wax cajiib ah sababtoo ah waxa ka tagtay aragtida wiilka isha kale. Wax la yaab leh ayay ahayd. Soja ma sheegin waxa ku dhacay McTominay ee sababta u noqotay dhaqaaq ku yimid wiilka isha ku aragtida ku waayay, hase yeeshee waxa uu kaliya ishaaray in qaybtii hore ay ku koobneed dhacdadan, taas oo ka dhigan in waqti nasashada ay dhaqaatiirtu daawo siiyeen uu taam ku noqday. qaybtii hore ayuu 23 jirkaan taakooyin ku qabtay Neymar, Mbappe iyo Angel Di Maria, waxaana ka dignin ah la siiyay qaybtii hore marka uu si xun u jalaafay Neymar oo kubadda kula soo socday dhinaca goolka Manchester United. Man United ayaa group H hoggaanka u qabatay markii ay xalay 2-1 ku soo garaacday PSG, waxaana goolka hore ah u dhaliyay Bruno Fernandes daqiiqadii 18aad, kaasoo ahaa rigooradii 11aad uu United u dhalay xidigan. Martial ayaa iska dhaliyay goolka PSG ay ku barbaraysay, waxaana dhamaadkii ciyaarta Manchester United ka farxiyay Rashford oo gool qurux badan guusha ku siiyay kooxdiisa Man United. Dhanka kale daawadayaasheena, war rasmi ah Barcelona kadib guushii xalay ku dhawaaqday heshiisyo cusub oo ay saxiixeen 4 ka mid ah ciyaartooyda Barcelona. Habeenkii xalay ayay Barcelona u ahayd mid farxadeed oo ay isku raaceen laba arrimood oo ay ka mid yihiin guushii weyneed ee 5-1 ay kaga bilowdeen tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan oo ay ku tunteen Ferencváros, waxaana ugu xigay inay ku dhawaaqday saxiixyo cusub oo qalinka ku duugeen 4 ka mid ah laacibiinta muhiimka ah ee kooxda Barcelona. difaaca kaadkac qaata ee Gerard Piqué, goolhaye Marc Stegen, Clinton Lenglet iyo Frank de Jong ayaa dhammaantood xalay saxiixay heshiisyo cusub oo ay waqti ugu sii dheereeyeen Barcelona. Gerard Piqué ayaa saxiixay heshiis cusub oo socon doona ilaa laga gaarayo June 2024, waxaana lagu daray qodob xakameyn doona lagu xidhay hadiiba ay koox soo dalbato ama uu isaga go'aansado inuu ka tago, taas oo ah in kaliya qandaraaskiisa lagu burburin karo 500 milyan oo euro ah. Piqué oo muhiim u ah qadka difaaca ee Barcelona ayaa haddii uu dhammaysto heshiiskan cusub waxay da'diisu noqon doontaa 37 jir, taasoo ka dhigan in xirfadiisa uu hibeeyay Camp Nou oo uu ciyaaraha kaga fadhiisan doono. Goolhaye Ter Stegen oo ay muddo kooxda dadaal ugu jirtay inay heshiis cusub ka saxiixdo ayaa isaguna xalay qalinka ku duugay qandaraas cusub oo soconaya ilaa 2025. Heshiiskiisa ayaa lagu burburin karaa xidigan 500 milyan. Lenglet iyo De Jong ayaa iyaguna qalinka ku duugay heshiisyo ay waayahooda ciyaareed ugu hibeeyeen Barcelona, waxayna saxiixeen heshiis gaaraya ilaa 2026. Qandaraaska Lenglet ayaa lagu xidhay heshiis dhan 300 milyan oo euro oo lagu burburin karo, waxaase ka duwan De Jong oo isaguna 400 milyan oo heshiiskiisa lagu burburin karo. Barcelona ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in kadib 7 waddo xaajood ay ahayd heshiisyo cusub la gaadhay laacibiinteeda, sidoo kalena ay ka heshiiyeen in si ku meel gaar ah mushaarka dhimis loogu sameeyo dhammaan ciyaartooyda inta ay taagan tahay dhibaatada xanuunkan coronavirus. halkaas waxaan noogu barnaamijkan. Fadlan hadday tahay markii kugu horeysay, fadlan subscribe noo saar channelka, aragtidaada hoos noogu reeb.